xafladan oo ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee degmada Shibis iyo gudoomiyihii hore ee degmada ayaa lagu qabtay xarunta degmada. xafladda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, wasiirro ka tirsan Hirshabelle iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Shibis ee gobolka Banaadir. ugu horeyn gudoomiyihii hore ee degmada Shibis Safiya Xasan Sheekh Cali ayaa xilka ku wareejisay gudoomiyaha cusub ee degmada iyadoo kula dardaarantay in uusan iska xumeyn dadka reer Shibis. gudoomiye ku soo dhawaad degmada Shibis. degmada Shibis waa degmo xadaaro leh. haddaa iska xumeysid adaa xumaanaysid. kuma xumaynayaane ha iska xumeyn. waxaa jooga haddaa u baahatid in dhibaato dhacdo odayaal oo aabbayaashee ah oo aad u qiimo badan oo kula xalin doonaan guddiga khilaafaadka. waxaan rabaa gudoomiye inaan kula dardaarmo howlaha kale aday gaar kuu yihiin, howlana anay gaar ii yihiin. waxaan rabaa fiyoorayaashaas quruxda badan leh oo habeen walba halkan ku cayaaraan. gudoomiyaha cusub ee degmada Shibis Cabdiraxmaan Said Cali horeyna uu ahaa gudoomiyaha degmada Dharkiinley ayaa sheegay in hawsha gudoomiyihii hore ee qabatay meesha ka sii wadi doono wax badan oo ku soo kordhin doono degmada. waa uga mahadcelinaha walaashayda Safiyo sida wanaagsan ii soo dhaweysay degmada Shibis. waxaana qayb ka noqon doontaa maamuladii aan soo wadnay maadaama Dharkiinley aan soo hogaamiyay muddo 2 sano ah. waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala reer Shibisna inaan hogaamin doono hogaamin wanaagsanna aan ku hogaamin doono insha Allah tacaala. waxaan dareemaa farxad badan hadal badan ma hayo. reer Shibis si gooni ah u sheekaysan doonaa, si gooni ah ururka haweenka, dhalinyarada, isboortiga, odayaasha, bulsho walba ay ka samaystaa culamaa u diinkeeda wasla joognaa waqti aan isla qaadan doonaa insha Allah tacaala. ugu dambeyntii gudoomiyaha amniga ee siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Tuulax ayaa ku ammaanay gudoomiyihii hore ee Shibis shaqada ay qabatay isagoo dadka reer Shibis ka codsaday inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada. fiyo caawa idinka dareenkiina ku sheegay uma baahna runtii intii aniga iyo dhagacad waxaan isweydiinaynay xil wareejinadii aad ka qayb gashay hadda ugu dambeeyay maxay uga duwan tahay degmada Shibis. marka shacabka Shibis noo sheegay waxay uga duwaneed runtii waxaan isleeyahay waa Monica waa maamo way marka saasay uga duwaneed dareenkiina. degmooyinka ay dumarku joogaan runtii waa ka shucuur badan yihiin degmooyinka kale ragga ay joogaan ee gobolka Banaadir. waayo waxaa idinka muuqata dareen waxaa dareemaysaan baahida dhabta ay dareemayaan shacabka degmadan degan. hooyana runtii dee waa taqaanaan doorka ay leedahay. marka Safiyo waa ku ammaana shaqadii ay soo qabatay caawa runtii halkan wax badan oo aad ogeydeen ama aanan ogeyn aan ku aragnay runtii waxqabadkeeda. marka gudoomiyaha cusub howl culus u taal Monica caawa waa ku xujeysay. marka waxaa laga rabaa in xujada Monica caawa ka soo baxdo ambalaasyadii iyo dabdamiskii inoo dhinaa halkan ku qornaa iyo runtii howlo badan ku yaala inaad maaragtay degmada Shibis u soo dhamaystirto.